wararka laga helay Addis Ababa ayaa sheegay in ciidamada booliska dalka Itoobiya xabsiga u taxaabeen Jimcihii shalay General Gabre kadib markii lagu eedeeyay gobol fallo iyo xadgudubyo ka dhan ah bini'aadanimada oo ka geystay gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya. xukuumadda cusub ee ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa soo saartay warqadda xariga Gabre iyadoo doonaysa in korneelkan la soo taago maxkamad isla markaana la marsiiyo cadaaladda maadaama uu ku lug yeeshay tacdiyo ka dhan ah gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya xilligii ay jirtay xukuumaddii hore. Gabre ayaa sidoo kale wajahaya dambiyo kala duwan oo ay ka mid yihiin kicinta rabshadihii ugu dambeeyay ee ka dhanka ah xukuumadda Abiy Ahmed oo ka dhacay caasimadda Jigjiga bishii Agoosto oo lagu dilay daraasiindada. korneelkan oo xiriir dhow la lahaa Cabdiilay hogaamiyihii hore ee dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya oo hadda xabsi ku jira ayaa dhawaan laga eriyay IGAD oo uu ka ahaa taliyaha gudoomiyaha ururka arrimaha Suudaanta Koonfureed. muddada xukunka Cabdiilay kooxaha xuquuqda aadanaha ayaa diiwaan galiyay dilal loo geystay boqolaal dad shacab ah oo ay ku jireen dad badan oo weli la yahay loona maleynayo inay dhinteen. General Gabre ayaa lagu xasuustaa in Soomaaliya ku soo hogaamiyay ciidamada Itoobiya 2016 xilligii dalka qaybo ka mid ah maamuli jireen maxkamadaha Islaamiga ah oo dagaal looga saaray goobihii ay ku sugnaayeen. Gabre muddadii ay jireen dawladihii Sheekh Shariif iyo Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu ka ahaa Soomaaliya hogaamiye siyaasadeed oo dalka saameyn weyn ku leh iyadoo marar badan laga gudbiyay dacwado inuu fargelin ku hayo arrimaha gudaha dalka isla markaana kaalin ka ciyaaray khilaafka siyaasadeed ee filla Soomaaliya iyo maamul goboleedyada. cabashooyinka hogaamiyaasha ay ka gudbiyeen mas'uulkan ayaa horseeday in laga qaado xilkii uu ka hayay xafiiska IGAD ee Soomaaliya oo la taliye dhanka siyaasadeed u qaabilsanaa. Amnesty International ayaa Gabre ku eedeysay in ciidamadii hogaaminaya dalka soo duulay ay dileen dad gaaraya 10,000 oo shacab ah kuwaas oo dilal arxan darro ah loo geystay iyo kufsi wadareed.